عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waa salaamantihiin. waa company-geena Forever Living Product. halkan maanta waxaynu igu soo gudbin doonaa qeybta caafimaadka, gaar ahaan qeybta loo isticmaalo lafa xanuunka, curuqa xanuunka, xididada iyo sidoo kale daalka badan loo isticmaalo. sida idinka muuqata halka wuxuu ka kooban yahay productigani afar qaybood. afarta qaybood qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa Forever Freedom. Forever Freedom waxay aad iyo aad ugu wanaagsan tahay, waa calcium tiyo dareeraha, waxay aad ugu fiican tahay shaqada lafaha iyo dhaqdhaqaaqooda intaba aad bay ugu wanaagsan tahay, oo waxay yareysaa inay laftu isgaadho amba isqabsato oo iscunto iyadu ayay yareysaa. ta ku xigta waa calcium tea oo kiniina, sida research caalami ah amba warbixino caalami ah ay sheegeen, qofku mar walba oo daadiisu sii korodho waxa yaraada calcium-ta lafihiisa ku jirta. sidaa daraadeed qofku mar walba wuxuu u baahan yahay inuu calcium dibadda ka qaato. sidaa daraadeed calcium-tu mar walba iyadoo sidaa inoo muhiima, tan waa calcium tiyo oo kiniina, waxay aad iyo aad ugu wanaagsan tahay tayeenta lafta, inay laftu calcium fiican ay yeelato oo tayadeedu fiicnaato. waxay u wanaagsan tahay neerfaha, oo calcium-tu qofku haddii ay hoos u dhacdo waxay keenaysaa in neerfaha iyo xididada xanuun badan uu sameeyo, sidoo kalena qofku daal badan u yeesho. waayo waxyaabaadkaas oo dhan waa waxyaabo intooda ugu badan calcium ku shaqeynaya, marka intaaba way ka anfacaysaa qofkii. ka ku xiga kiniin la yiraahdo Active-gu isagu wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay isgoysyada. laf walbaaba meesha iskugu timaado carjow ayay leedahay, sidoo kale biyo yarna way ku jiraan, taasoo u sahlaysa socodka lafta. haddii intaasi hoos u dhacdo lafta yar ay ka dhex baxaan dareeraha yari, laftu way isqabsanaysaa, kadibna carjowdii ayaa meesha ka baxaysa, laftiina caadi bay isku cunaysaa. kan Active-gu wuxuu ka hortagaa uu siyaadiyaa biyaha lafaha dhexdooda ku dhex jira, ayuu kor ugu qaadaa, wuu duxeeyaa lafta oo mid duxaysan ayuu ka dhigaa oo aan isqabsanayn. sidoo kalena carjowdana wuu nooleeyaa oo carjowda kor ayuu u qaadaa si carjow fiican ay laftu u yeelato. wuxuu ka hortagaa inay laftu iscunto oo laftu isqabsato ayuu ka hortagaa. sidoo kalena dhawaaqan markuu lafuhu hoos u dhacaan ay isgaadhayaan, qababacda ay gurayaan amba shanqadha sameynayo dhan wuu yareeyaa, meeshana wuu ka saaraa. ka ugu dambeeya waa cream amba bomato, taas oo la marinayo muruqyada uu qofku ka cabanayo dhan iyo xanuunka uu ka dareemayo dhan uu marinayo. habeenkii markuu sii seexanayo ayuunbuu marinayaa, hal waqtina wuu marinayaa. intaas waa inta loo isticmaalo lafa xanuunka, curuqa xanuunka, xidida xanuunka, daalka badan iyo muruqyo xanuunka intaba loo isticmaalo. qofku 3 bilood buu wadaa, laakiin bil ayuu qofku isticmaalaa, badi dadkana bisha ayaaba ku filnaata. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.